Please welcome 3-year-old James. Okay, marka hore wuxuu ku bilaabay please welcome 3-year-old James. Fadlan soo dhaweey Jameska 3 sano jirka ah. You want to grab a seat? Sure. Markan Steve waxa weydiinaya cunug yar ma rabtaa inaa fariisto leeyahay wuxuu dhahaa marka wanna grab a seat. Wanna grab a seat. Ma rabtaa inaa fariisato. Look, man, I wore my black pants because they said that the mayor was going to wear black pants, so I said I better wear my black pants. And look, we both got on black shoes. Yeah. Okay, markan James wuxuu dhahay look man, fiiri ama idhigeyso qof attentionkiisa markaa rabta inaad soo jeeso waxaa leedahay look man, okay? wuxuu dhahay marka I wear my black pants because they said the mayor was going to wear black pants. wuxuu dhahay waxaan xirtay surwaalkayga madow ah maxaa yeelay waxay dhaheen maayirku wuxuu soo xiran doonaa surwaal madow ah adigan ku dhaajinayo yacni. Hey guys, ku soo dhawaada channelka English with Mima. maanta waxaan idin wadaa video kuwii hore ka duwan. waxay igu soo laalaabatay mushkilad ay ardayda ka sheeganayaan inay fahmaan Soomaalida laakiin markay dhageystaan dadka cadaanka ama dadka luqadda u dhashay aysan waxba ka fahmeenin. fasi aan u xalil mushkiladaas waxay igu soo dhacday fikrad ah inaan soo qaadano shows kadibna showgaas aan qaadaa dhigno mid u sharaxno. meeshaas waxaa ka baran kartaa eray cusub sidoo kale tadna waxaa laga yaabaa inaad la qabsatid qaabka u hadlaan ayaga. sidoo kale inta showga socdana waxaa idin siin doonaa tips iyo tricks wax yarna waa idin sharxi doonaa midna wixii sharaxaad u baahan yihiin oo kale waa idin sharxi doonaa. introga ku dheeraanin, let's get into it. showga maanta sharxi doono waa show loo yaqaano Little Big Shots. showgan waxaa leenin loo yaqaano Steve Harvey. waxa uu ka casuumaa showska caruurta talentiga leh ama caruurta wax yar friidka ah da'dooda yani wax yar ka aqli badan ayuu show ku casuumaa. aan bilaabno marka. Please welcome 3-year-old James. Okay, marka hore wuxuu ku bilaabay please welcome 3-year-old James. fadlan soo dhaweey Jameska 3 sano jirka ah. dadka grammarka bartaan waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan hadda waa loo dhahay 3-year-old oo aan loo dhihin 3 years old. yani sidaan wada ognahay 3 waxay waaye jamac waaye laba iyo wax ka badan jamac loo yaqaan luqadda Ingiriiska waaye 3 year loo dhahay oo aan 3 years loo dhihin. sababtu waxay tahay meeshan 3-year-old waxay ugu jirtaa qaab sifo ah ee ma ahan jumlad. yani tusaalaan haddii aad dhigaysid James waxa uu jiraa 3 sano waxaa leedahay James is 3 years old. ilaa markaas sifo ma ahane laakiin markaad dhigaysid Jameska 3 sano jiro waxaa dhahaysaa the 3-year-old James. ina fahanteen rajaynaya. famarka hore wuxuu ka bilaabay soo dhaweyn wuxuu dhahay please welcome 3-year-old James. fadlan soo dhaweey Jameska 3 sano jirka ah. Mr. Mayor, how are you? Good. okay, kadib markii uu soo dhaweeyay wuxuu dhahay Mr. Mayor, how are you? mudane mayor sidee tahay? mayor af Soomaaliga waxay dhahaan mayor ama mayorka magaalada dhahaan. Mr. Mayor soo dhawaa uu dhahay Mr. Mayor sidee tahay? wiilku wuxuu ku jawaabay yaraa good fiican. marmarka qaar waxaa laga yaabaa native-ka inaysan dhihin I am good or I'm fine ama I am taxta meesha laga saaro fine ama good la dhaho. You want to grab a seat? Sure. markan Steve waxa weydiinaya cunug yar ma rabtaa inaa fariisto leeyahay wuxuu dhahaa marka wanna grab a seat. wanna grab a seat. ma rabtaa inaa fariisato. ereyga grab macnihiisu waxaa waaye soo jiidasho inaa wax meel ka soo jiidid. tusaalahaan anaga Soomaalida waxaa dhahnaa ma ahano yani gamarkaan soo jiida ama kursigaan soo jiida ee fariiso. fa marka wuxuu yiri wanna grab a seat. ma rabtaa inaa fariisato ama kursi inaa soo jiidato ma rabtaa. Sure. wiilkana wuxuu ku jawaabay sure طبعا ama haye haana way u dhigmataa. You're the mayor at 3 years old? markan Steve wuxuu dhahay you're the mayor at 3-year-old. markan su'aal ma ahan laakiin qaabku u weydiinayo su'aal ka dhigayso yani hadda su'aal sameey ma u jeednaa is are wax laga hormarin laakiin yani qaabku u weydiinayo toonka ee sheekada ku socotaa su'aal ka dhigayso wuxuu dhahay you are the mayor at 3-year-old. ma waxaad mayor ku tahay 3 sano jir yani 3 sanadoo jir misaas ma mayor ku tahay camal ayuu weydiinayaa. ma notice gareysay in hadda James la dhahay at 3 years old oo aan dhihin at 3-year-old maxay lahayd sifo maahan at 3 years old allah marka 3 sano jir miyaad mayor ku tahay ayuu weydiiyey. Yes. James kiyaraa madaxa ayuu luxay. luxidaas madaxa la luxay luqadda Ingiriiska waxaa loo yaqaanaa nod. waxaa leenahay marka James nods his head. What are your duties as the mayor? markan wuxuu weydiiyey what are your duties as a mayor? waa maxay waajibaadka ku saaran ka mayor ahaan? I shake everybody's hands. cunug yaraafani baa wuxuu ku jawaabay I shake everybody's hands. يعني waxaan salaamaa qof walba gacanta ka salaama yani shake hand waxaa lahaa markaa salaanta gacanta isgelisiina waxaa lahaa shake hand. ereyga shake keligiis waxaa waaye luxid yani gacanta saasoo looma jiljilayo marka la salaamo marka waxay dhahaan shake hand.
wuxuu dhahay marka I shake everybody's hands يعني dadka dhan aa gacanta ku salaamaa. Your pants are black and my pants are black. Okay, James haddana ku ceshto wuxuu dhahay your pants are black and my pants are black. يعني wuxuu dhahay surwaalkaaga waa madow, surwaalkaygana waa madow. American Englishka markaa joogno pants waxaa loo yaqaanaa surwaal, halka trouserska waxaa dhaho dadka UK ayaa waxay dhahaan trousers. Fa marka Americanka waxaa la dhahaa pants. Look, man, I wore my black pants because they said that the mayor was going to wear black pants, so I said I better wear my black pants. And look, we both got on black shoes. Yeah. Okay, markaan James wuxuu dhahay look man, fiiri ama idhigeyso of attentionkiisa markaa rabti inaad soo jeeso waxaa leedahay look man, okay? Wuxuu dhahay marka I wear my black pants because they said the mayor was going to wear black pants. wuxuu dhahay waxaan xirtay surwaalkayga madow ah maxaa yeelay waxay dhaheen maayirka wuxuu soo xiran doonaa surwaal madow ah adigan ku dhaajinaya yacni